kulan wacan oo wanaagsan halkan waa xanta wararka ku soo dhawaada ku biiro dawadaasha ku xiran halkan si aad qayb uga noqotaan wararka falanqaynta iyo dhacdooyinka aanu halka ku sameeyno kuna faaqidno waxyaabaha daawad doontaan waxa kamid noqon doona Xamza Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu ku wajahan yahay degmadaasi aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan soo gudbin doonaa Xamza socdaalkiisaasi aadan yabaal uu ku aadayo maxay ka dhigan tahay waxaan soo gudbin doonaa warbixin arintaas aanu ku falanqeyn doono iyo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo dib u la wareegay deegaano horey looga qabsaday waxaan soo gudbin doonaa adduun weyn raali ka noqdo daawadayaashii nagu xiranow 30 dagaalyahan oo al-shabaab oo isku goob lagu dilay xilli dagaalkaasi uu sii xoogeysanayay qodobada iyo kuwa kale ayaa daawad doontaan soo dhawaada oo ku biiro daawadayaasha ku xiran si aad qayb uga noqotaan wararka falanqaynta iyo dhacdooyinka aanu halkan ku soo gudbino kuna falanqeeno aynu ku bilowno daawadayaashii nagu xirano adigoo la garanaya sidoo kalena share garanaya barnaamijkan Xamza Cabdi Barre waxa uu ku wajahan yahay degmadaasi aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Barre iyo wafdi horkacayo ayaa waxa lagu wadaa in maanta uu safar uu ku tago degmadaasi aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe aadan yabaal oo dhawaan laga xoreeyay kooxda al-shabaab ayaa ah degmo muhiim ah oo sanado badan ay ka talinayeen ururkaasi shabaab waxaana xilligan si buuxda gacanta ugu haya ciidamada dawladda ee Soomaaliya degmada ayaa laga dareemayaa soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxaana la sheegayaa in ujeedka safarkiisu uu yahay sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka ah al-shabaab Xamza ayaa dhiirigelin doona ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee halkaasi ku sugan oo deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi Shabeellaha Dhexe ku xoreeyay kooxdaasi al-shabaab ra'iisul wasaaraha ayaa hadda u tago degmadaasi aadan yabaal waxa uu noqon doonaa mas'uulkii ugu horeeyay ee ka socda dawladda federaalka Soomaaliya oo halkaasi taga tan iyo markii la aasaasay maamulka Hirshabeelle deegaano u dhow aadan yabaal ayaa waxa xilligan ku sugan madax ka tirsan dawladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle oo uu sareeyo madaxweyne Guudlaawe xildhibaano iyo saraakiil ciidan iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo halkaasi ku soo dhaweyn doona ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre warar baa jira sheegaya in ra'iisul wasaaraha uu halkaasi ka dhagax dhigi doono garoon caalami ah ama garoon duulimaad oo halkaasi ku sameyn doonaan ama laga dhisi doono sida wararku tibaaxayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan waxa uu gaaray gobolkaasi Shabeellaha Dhexe Cadalle Masaajid Ali Guduud iyo deegaano kale ayuu madaxweynuhu tagay halkaasi oo markaasi ciidamada ku dhiirigeliyay ka hor qabashada degmadaasi aadan yabaal isaga oo sidoo kalena aad u dhiirigeliyay ciidamada sidoo kalena heshiis la galay beelaha dega halkaasi isaga oo xaliyay colaadyo beeleed halkaasi ka jiray sidoo kale waxa uu furay isbitaal isaga oo dhagax dhigay gegada yuuradeed ciidamada dawladda waxay dib u la wareegeen haddaba deegaano hore looga qabsaday ciidamada militariga Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed ayaa dib u la wareegay deegaanada Daynuunay iyo Moodo oo ka tirsan gobolkaasi Bay deegaanadan oo maalmo ka hor la wareegeen al-shabaab ayaa saaka aroortii hore waxa weerar ku qaaday ciidanka dawladda waxaana deegaanka iskaga baxay kooxdii al-shabaab ka hor inta aysan ciidanka dawladda soo galin saraakiisha militariga ee ciidankan hogaaminaya ayaa sheegay in ciidamada si buuxda gacanta ugu hayaan labadan deegaan oo dhaca duleedka magaalada Baydhabo isku xiran magaalooyinka Baydhabo iyo Buurakaba al-shabaab ayaa marar badan qabsaday deegaanada Daynuuna iyo Moodo lamana oga in ciidanka saaka dib u la wareegay deegaanadan ay sii joogi doonaan iyo in ay markaasi dib uga bixi doonaan sawirro la soo baahiyay ayaa muujinaya deegaanadaasi oo ay ciidamada dawladdu markaasi ku dhex socdaan iyagoo gacanta ku dhigay deegaanadan oo u muuqday kuwa markaasi dhaqdhaqaaqyadaasi ay sameynayeen ciidamada dawladda sidoo kale goobaha ganacsi ayaa u muuqday kuwa markaasi iyaguna xiran maadaama deegaanadaasi lagu qabsaday dagaal ilaa iyo 30 ka tirsan kooxdaasi al-shabaab ayaa isku goob lagu dilay xilli dagaalka uu xoogeystay dawladda federaalka ayaa shaacisay in duqeyn ka dhacday gobolkaasi Shabeellaha Dhexe lagu dilay in ka badan 30 xubnood oo ka tirsan kooxdaasi maleeshiyada ah ilaa iyo 30 xubnood oo ka tirsan qawaariijta al-shabaab ayaa lagu dilay tiro kalena waa lagu dhaawacay howlgal qorsheysan oo ciidamada gaarka ah iyo sirdoonka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ay ka fuliyeen galbeedka deegaanka Obale
oo hoos taga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xukuumadda. Howlgalladan ayaa la sheegay in lagu beegsaday maleeshiyaadkan kooxdaasi Al-Shabaab oo xilligaasi doonaya inay u gurmadaan qawaarij kale oo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay ku dagaalameen bariga deegaanka Obale. duqeynta ayay inta badan fuliyeen ciidamada Mareykanka ee jooga Soomaaliya, waxaana tirada khasaaraha ay ku kala duwan yihiin taliska Africom ee Mareykanka iyo dowladda federaalka ah. waxaa sidoo kale jira weerar ay dowladdu ku sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ay mararka qaar fuliyaan duqeymo, balse dowladda Turkigu weli ma xaqiijin arrintan ayaa imaanaysa iyada oo howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab si dardar leh ay uga socdaan gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macawisleydu ay hujuumayaan deegaanadaasi ay kooxahaasi ka maamulaan gobolka. ciidamada ayaa isku fidinaya deegaanada dhacaduleedka degmadaasi Mahadaay ee markaasi ku tirsan webiga Shabeelle, gaar ahaan aagga Cali Fooldheere. howlgallada kale ee midkani barbar socdo ayay ciidamada ka wadaan deegaano kale oo dhaca duleedka degmadaasi Aadan Yabaal ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe, halkaasi oo yana dhaqdhaqaaqyo lixaad leh ay markaasi ka wadaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. si kasta oo ay xaaladda noqoto, dawadayaasha saaxiibada inagu xiranow waxaa markaasi socda dhaqdhaqaaqyo dhowr ah oo ay markaasi wadaan ciidamada dowladda qaybahooda kala duwan, iyaga oo ay markaasi ku riixayaan dhaqdhaqaaqyadaasi. si kasta oo ay xaaladda noqoto, waxaa socda qaybo badan oo ka tirsan gobollada dalka dhaqdhaqaaqyo ka dhan ururkaasi Al-Shabaab oo la doonayo in qaybo kaga sugan yihiin laga saaro gobolkaasi Shabeellaha Dhexe. waxaa boqolkiiba markaasi intiisa badan ama wax ka badan 95% gacanta ku haya ciidamada dowladda marka laga reebo goobo kooban sida la warinayo, iyadoo dhaqdhaqaaqyadaasi ay weli socdaan. fariisinkii ugu weynaa waxa uu ahaa Aadan Yabaal oo kol sii horeysay gacanta lagu qabtay dhawaana, sida barnaamijkeenan aad kula socotaanba uu ra'iisul wasaaraha ku wajahan yahay si uu markaasi barnaamijyo horumarin ah uu uga sameeyo deegaankaasi ama degmadaasi. goboladaasi Baay iyo Bakool iyana waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo kale oo ururkaasi Al-Shabaab laga saarayo deegaanada uu kaga sugan yahay gobolka. Jubbaland waa meelaha aan weli dhaqdhaqaaqyada laga sameynin. gobol dhan ayay kaga sugan yihiin jubbooyinka. haddaba ciidanka Jubbaland ayaa howlgallo ka sameeyay duleedka magaaladaasi Kismaayo. ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa howlgallo xooggan waxay saacadihii la soo dhaafay ay ka sameeyeen deegaanka Baarka ee dhaca duleedka magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose. howlgalka ayaa waxa uu daba socday kadib markii xubno ka tirsan ururkaasi Al-Shabaab ee weerar hubiyaal ah ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Jubbaland ee deegaanka Baarka, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka ay ku baadigoobayeen raggii weerarka hubiyaasha ahaa ku soo qaaday, hase yeeshee ma shaacin khasaaraha ka soo gaaray weerarka iyo haddii ay jiraan dad ay ku soo qabteen howlgalka. ciidamada Jubbaland ayaa mararka qaar howlgallo ka fuliya deegaanada ku yaala duleedka magaalada Kismaayo, inkastoo saldhigyada ciidamadu ay weeraraan xubno ka tirsan ururkaasi Al-Shabaab. si kasta oo ay xaaladda noqoto, dhaqdhaqaaqyadaasi ayaa ah kuwa markaasi maamulka Jubbaland uu ku xoojinayo dhaqdhaqaaqyada ku sameynayo gobollada dalka. waa gobolkaasi jubbooyinka, iyada oo dhowaan uu soo bandhigay ciidamo xooggan halkaasi oo ay joogeen taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo xubno kale. waxaa lagu wadaa in dhaqdhaqaaqa Jubbaland la hormariyo, sidoo kalena Axmed Madoobe lagala howlo ama lagala fadhiisto dhaqdhaqaaqyadaasi. waxaa la wariyey in arrimaha ay u joogsadeen dhaqdhaqaaqyadaasi ay la xiriirto roobabka ka curtay gobolladaasi dalka jubbooyinka iyo qaybo kale, kuwaasi oo markaasi iyana istaajiyey dhaqdhaqaaqii ka dhanka ahaa ururkaasi Al-Shabaab, maadaama goobahaasi oo u badan dhul dhoobey ah oo marka uu roobka ku horo ay noqonayaan kuwo iyagu howlgalladaasi aysan ciidamadu samayn karin, taasi oo keentay in la istaajiyo si dhaqdhaqaaqyadaasi ay u noqdaan kuwo fashiliya dhaqdhaqaaqyada ciidanka ee ay markaasi ku wajahnaa deegaanadaasi sida la wariyey ama xoguhu ay tibaaxeen. waxaana la warinayaa xil roobaadkan markuu idlaado dhulkana qaleel uu noqdo in markaasi tallaabooyinka militari la sii horumarinayo qaybo badan ururkaasi Al-Shabaab kaga sugan yahay dhulalkaasi dhoweyda ahna la sii ambaqaadayo. inta ayaa ku dhaafnaa barnaamijkan Nabadiina saaxiibayaal daawadayaal. ha hilmaamin sidoo kalena la garay qaybta hoosan aragtidaada nagu dhaaf.